بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما توحن بلا من عشر كيني كلر تيريغا كلر تيريغ marka laga ka hadlayno wuxuu qaybsan yihiin saddex qaybood qayb oo loo yaqaano primary color ku wuxuu ka kooban yahay saddex color red blue iyo yellow saddexda color ba iyagu marka la isku dardaro waxay sii dhalayaan saddex color oo kale oo loo yaqaano secondary color ku waxay kala yihiin purple green iyo orange purple ku waxa iska dhala casaanka iyo bluega green kan waxa iska dhala bluega iyo yellowga orange kan waxa iska dhala redka iyo yellowga waxa daba jiray iyaguna teddy color loo yaqaano oo iyaguna waxay ka dhashaan colorada kala oo isku primary color iyo secondary color oo isku daray sida xagan aad ku aragto red iyo orange marka la isku daro waxay dhalaan red orange blue iyo marka la isku daro red iyo purple kana waxay dhalaan red purple bay dhalaan blue iyo green kana purple kana waxay dhalaan red purple blue iyo green kana waxay dhalaan red green green iyo yellow kana waxay dhalaan yellow green red yellow iyo orange kana waxay isku dhalaan yellow orange marka third color kuna saasi ku soo baxaa primary color ku iyo secondary color ku marka isku daro ay iyaguna third color kuna soo hue hadan ka hadalo hue waxa weyn waa colorka original shade waa macnaha labaad ee loo yaqaan color marka ka hadlano terminology-ga loo isticmaalo ayaa loo yaqaan hue waa sida colorada originalka ah sida red blue green yellow orange coloradaas loo yaqaan hue marka waa color ban u fahanay saturation baa yimi saturation waxa weyn wax hue-gi ka yimi oo noqday gray xaga gray oo socdo oo dhan baa loo yaqaanaa saturation marka colorka rasmigiisa marka uu taagan yahay waxa la oranayaa high saturation marka uu xaga greenka u socdana waxa la oranayaa desaturation then waxa loo soo gudbay value waa maxay oo wax markuu middle tone-ka ka tago oo hue-gi nacam colorka asalka uu ka tago oo cadaan noqdana waxa light buu noqonayaa marka uu xagga midowguna dark buu noqonayaa kaasa loo yaqaanaa value waxa wax color ka tagay midabkiisii oo cadaati noqday ama darkness noqday ayaa loo yaqaanaa value shade bay shade-ku waa color originalkiisa oo hue color marka lagu daro black madow marka lagu daro oo xagga madowga u dhaqaaqo ayaa loo yaqaanaa shade shade marka wixii colorka originalka ka tagay ee xagga madowga u socda ayaa loo yaqaanaa shade teen markaan ka hadlaynana waxa weyn waa color marka originalkiisa uu ka tago uu qabto xagga cadaanka u kaco ayaa loo yaqaanaa teen waxa yimi town kuna waa maxay waa color marka originalkiisa ka tago ee uu socdo xagga gray hal hada waxa yimi temperature marka ka hadlano xaraarad baa loo yaqaanaa coloradu laba qaybood bay kala qaybsadaan cool colors iyo warm colors cool colors waxa loo yaqaanaa laga bilaabo marka aad ka timaado red purple-ka uu ka bilaabmayaa dibna wuxuu u soconayaa red purple-ka intuu ka bilaabmayo wuxuu u soconayaa dhanka greenka ku dhamaanaya xaggan kalena wuxuu ka bilaabmayaa redki rasmiga ahaa originalka ahaa wuxuuna ku dhamaanayaa yellow orange yellow green marka dhanka waxaa ku jira hal color oo primary ah oo ah redka iyo yellowga oo isaguna primary color ah intii kale secondary iyo laba secondary iyo hal secondary oo orange ah xagga kalena waxaa ku jira blue color oo loo yaqaan hal primary color ah iyo laba secondary color oo ka mid yihiin purple iyo green kuwa kalena waa third iyo midabada kale isku daray marka dhammaan wixii colorada xagga dhankan xiga waxa loo yaqaan cool colors wixii xaggan xigana waxa loo yaqaan warm colors
هذا complementary color وامحي وكلرada iska soo horjeeda opposite ka isku complementary color kan ka hadlayna every primary color waxa ka soo horjeeda oo complementary color ku ah secondary color imka redka waxa complementary ku ah green haddii aan nahno yellow ga kalena waxa complementary ku ah primary purple blue ga waxa primary color ku ah orange dhammaan kalaradii complementary colorka waxa weyn waa saddexda nooc red and green blue and yellow orange iyo blue haddaba complementary color markaan ka tagno aan u gudubno analogous kan scale-ka oo ah laba color ama saddex color oo isku dhinaca wuxuu ka bilaabmaa laba color ama saddex color oo isku dhinaca labadii color isku dhinaca iyo saddexdii color isku dhinaca waxa loo yaqaanaa analog color red color kuna waxa weeyaan waa saddex tii original color ka ama saddexdii primary color ka ama saddex third color ka oo saddexdii waxaad ba yimid split complementary color ayaa jira muxuu noqonayaa hal original color ah oo balkii primary color iyo laba third hal original ama laba third hal original laba third waxaa jira trade rectangle colors bajmo waxay noqonayaa iyagu afar complementary color laba complementary color ah iyo laba iyaguna complementary color ah laakiin oo third color ka kooban third rectangle color kana kala baa yimi oo isaguna ah afar complementary color oo iska soo jeeda square skin-ku ayaa yimi hadaba square skin-ku wuxuu noqonayaa afar complementary color marka insha Allah waxaan imka sii hadlaynaa noo harsanaa waxaan kalaradu in laba qaybood u kala qaybsamaan marka printed colors ay kala yihiin iyo marka ay monitorka lagu daawanayo marka monitorka lagu daawanayo waa adaptive color weeyaan baa loo yaqaanaa waa RGB systemku waxa la u isticmaalaa kalarka loo yaqaan RGB oo ka kooban saddex kalar kalarkaas loo yaqaano redka greenka iyo bluega marka selective colorkana aan ka hadlayno marka daabicisay noqoto every color kasta oo daabacayso wuxuu ka kooban yahay systemka loo yaqaano CMYK ku wuxuu ka kooban yahay afar color waa cyan magenta yellow iyo black xagga uu RGB ka kooban yahay saddex color oo ah red green iyo blue saddex color marka la isku wada daro waxay pure dharaan cadaan pure ah xagga opposite ku yahay CMYK marka la isku wada daro isagu noqonayo black marka waxaad maskaxda ku haysaa in markaad kalarka isticmaalayso for printer aad u isticmaalayso marka ugu dambeysay aad finalize gareyso design-kaagii ama waxaad sameynaysay in aad u bedesho CMYK marka hadday waxaa publication u isticmaalaysa ama website-na waxay isticmaalaysaa systemka adaptive-ka ah ee loo yaqaano RGB-ga okay xaggan waxaa jira scale ay isticmaalaan colorsku chroma markaan ka hadlayna chroma waxaa loo yaqaanaa waa hue-ga colorka originalkiisa markuu ka tago ee xagga gray u gudbeeyo ayaa loo yaqaanaa chrome xagga saturationkana loo yaqaan isagu digrigiisa marka uu ka tagay ka imanayo originalkiisa wuxuu colorku ka sii dhamaanayo ka sii baxayo intensity marka waxa loo yaqaan isaguna wuxuu la mid yahay value-giyo oo isagu wax brightness-ka ama darkness-ka colorka uu leeyahay ay leeyahay shade marka ka hadlayna wuxuu markuu ka tagayo actual colorkiisa uu madow ku sii kordhayo tinkuna wax actual colorkiisa markuu ka tagayo ee uu sii noqonayo cadaan okay waxa kale admaanka ku haysaa kalaradu waxay leeyihiin micnay sameeyaan kalar walba micnuu leeyahay waxbuu ku arooraa
casaanka kale wuxuu turjumaa faayka dabka ku turjumaa wuxuu kala turjumaad ka bixiyaa dhiigga waxa loo isticmaalaa energy-ga dagaalka dangerka waxyaabaha noocaas oo dhan baa loo isticmaalaa royalty-ga powerka nobility-ga wealth-ka ambition-ka iyo waxyaabaha la midka buluug waxa loo isticmaalaa sky-ga sea-ga badda depth stability trust waxyaabaha noocaas ayagana loo isticmaalaa yellow-gan waxa loo isticmaalaa sunshine-ka joy-ga waxyaabaha la midka energy-ga insha Allah casharada dhamaanteed waxaad ka heli doontaa insha Allah PDF-kan imkaan wax ka sharaxayo linkiska xagga hoose ku qoran insha Allah maanta hadaba casharadeen waxa ahayd inaan kala fahmo waa maxay color week waa maxay the meaning of the color macnaha uu color ku leeyahay iyo color harmony-ga oo ah sida aan ka hadlinay supplementary color-ka kala ka hadlinay analog color-ka color-da israaci ayaa loo yaqaanaa color harmony-ga color week-na waa cool colors-ki iyo warm colors-ki the meaning of the color-kuna macnayaasha color-ku kala leeyahay sida dee saturation markaan ka hadlinay tone ka hadlinay waxaas oo dhan baa loo yaqaanaa color meanings color-ku leeyahay waxaa daba yimid su'aalaha kale skills waa maxay skills ka daba aan ka dhaxalay casharin coloradu waxay ku kala duwan yihiin baa number 1 ka secondary color-ka iyo third color-ka iyo primary color-ka waxay kala yihiin maxaa kala aan skills kala kala dhaxalay muxuu ahaa harmony-ga color-ka way kala leeyihiin insha Allah waxaan filayaa inaad su'aal fahanteen wixii su'aalana insha Allah comment insha Allah kusoo qulbana